naxashka lagu qaado meydka ayay garabka ku sideen laga soo bilaabo cisbitaalka Digfeer ilaa iyo qabuuraha Barakaad. Marxuum Axmed Mukhtaar Saalax oo 4 maalin lagu hayay cisbitaalka Digfeer, waalidkiisu waxay diideen maanta oo aaskiisa ay ahayd in lagu qaado meydka wiilkooda gaari. taasi beddelkeedna waxay qaateen go'aanka ah inay la lugeeyaan tan iyo inta ay ka aasayaan. takbiirta oo cod sare ay ku akhrinayeen waxay keentay in dad badan ay isugu soo baxaan xaafadaha ay lugta ku marayeen si ay u caawiyaan isla markaasna ay kala qayb galaan aaska ninka la gubay. markii dhinaciisa la dhigay marxuumka dhulka ayaan la hadalnay qaar ka mid ah ehelkiisa. alxamdulilah hadda qalbigeen waa noo qaboobay. Soomaaliya idila duugta ka soo qayb gashay, Soomaaliyeed duugtay. Allah u naxariisto, anakan Allah noo naxariisto, Ilaahay Allah cafiyo, anakan Allah na cafiyo. dilka marxuumkan ayaa ahaa mid saameeyay bulshada Soomaaliyeed dal iyo dibadba, waxayna noqotay dhacdadan mid aad looga argagaxo walow weli dawladdu aanay ka hadlin. Munasar Maxamed Cabdi, Dalsan TV, Muqdisho.